hal sano gudihii 3 kal fadhi oo ay 3 maalmood u dhaxayso qaarkood ayay ku shaqeynayaan xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Galmudug waxaase dood badan ay ka taagan tahay su'aala ma mashquul ku furan howlaha baarlamaanka mise waa maamul xumo baarlamaanka maamulka Galmudug haysata sidoo kale waxa ay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed qaarkood gaar ahaan shacabka reer Galmudug isweydiinayeen iyadoo ay Galmudug xaalado adag ee wajahays waxa ku dhacay baarlamaanka oo kamid ah hay'adaha ugu muhiimsan ee dowlad goboleedka dadka qaar waxay ku eedeynayeen guddoonka inay xukuumaddu ama madaxtooyada ay afdubatay baarlamaankii oo ay ka indha saaban yihiin waxa ka socda deegaanka haddaba su'aalaha arrintaasi ku saabsan iyo culeysyada shaqo ee haysta ayaa caawa waxa ka wareystay xildhibaan Axmed Cabdirasaaq oo kamid ah xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa xildhibaan Axmed Cabdirasaaq Galmudug waa baarlamaanka labaad dowlad goboleedka Galmudug yeerato wuxuu u shaqeynayaa ku dhawaad muddo 2 sano ah oo ay hadda 2 bilood ka dhiman tahay xilligii lagu magacaabay ahaa 2020 bishii January 12 oo hadda muddo yar ay ka dhiman tahay baarlamaanka howlo badan oo soo qabtay sida wada ogsoonahay oo kamid tahay ansixintii xukuumadda iyo shuruuc fara badan oo xukuumadda ay soo gudbisay shaqooyinkii baarlamaanka muddadii hore waxay ahayd kuwo ku socda xawli inkastoo markii dambe isbedel uu yimid laakiin ay yihiin howlo baarlamaanka weli gudihiisa dhexdiisa ka jiro oo aan caqabado fara badan iyo wax banaan kusoo baxaysan ahayn sida caadiga ah kalfadhiyada baarlamaanka waxaa loogu talagalay sanadkii in 2 dhacaan bilooyin u dhaxeeyo oo fasax ah waxaa aad loo hadalhayaa in sanad gudihiisa 3 kalfadhi oo waliba qaarkood 3 cisho u dhaxaysa inaad yeelanaysaan maxaa weeye degdega ama culeyska jira ee kulamadan dheeraadka ah iyo kalfadhiyada baarlamaanka waxay diyaar u yihiin mar walba in ay shaqeeyaan gobolka Galmudug iyo shaqadii loo igmaday oo ay u dhaarteen baarlamaan ahaan waxay diyaar u yihiin mar walba in shaqada qabsadaan aan ka mid ahay guddoonka maalintii talaadada shalayta wuxuu ku dhawaaqay in maalintii Isniinta ahayd wuxuu ku dhawaaqay baarlamaanka waxay ansixiyeen ajenda xukuumadda qaraar ay soo gudbisay oo ahaa degmada Guraceel gudoomiyaha wuxuu ku dhawaaqay in maalinta aan joognay Isniin ahayd in Arbaco iyo Khamiis iyo Jimco jadwalka waxaan ugu qoran maalinta Khamiista iyo Jimcada in baarlamaanka shaqeynayeen marka wuxuu dhaar Arbaco iyo Khamiis iyo Jimco waa fasax maalinta Sabtida ahna waxaan u furmay kalfadhiga afraad kii saddexaad uu noo soo socday fadhigiisa shanaad oo aan qoranay maalinta Khamiista ahna meeshuu nagu eeguur waa noo xiran yahay waxayna u muuqatay arrin uu ku xadgudbay xerosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug kaasoo cadeynaya in 2 kalfadhi u dhaxayso muddo 2 bilood ah baarlamaanka wuxuu shaqeeyaa sanadkii 8 bilood isku dar ah 4 bilood markuu uu shaqeeyo kalfadhi walba wuxuu leeyahay muddo 4 bilood oo xilli shaqo ah iyo 2 bilood oo fasax ah halka kalfadhiga labaad 6 bilood oo sanadka markuu furmo 4 bilood oo kamid ah shaqeeyo 2 bilood oo fasax uu leeyahay habraaca inuu qoran xerosaadka baarlamaanka uu dhigayo gudoomiyaha wuxuu ku gudbay inuu dabaqo xerosaadka asagoo u guuray wax jaarkiisa uu ka wato oo ah in uu soo gudbiyo baarlamaanka ku dhawaaqo waliba iyadoo guddoonka aysan garbihiisa fadhin oo ay u adkeysan waayeen xaalada socotay sida ay tahay gudoomiyaha wuxuu afduubay baarlamaanka wuxuuna ku dhawaaqay in kalfadhiga saddexaad uu xiran yahay haddii uu soo xiray gudoomiyaha kalfadhiga saddexaad wuxuu xaq u lahaa baarlamaanka iyadoo la dabaqayo xerosaadka in muddo 2 bilood oo fasax la qaato gudoomiyaha wuxuu ku dhawaaqay muddo 3 casho kadib ah oo 20 bisha ah inuu furmi doono kalfadhiga afraad sida caadada ah baarlamaanka markuu shaqeynayo kalfadhiyada haddii ay taalo whole process oo socdo inuu kalfadhiyada baarlamaanka fadhiyada baarlamaanka inay soconayaan kalfadhigaas uusan xirmayn miisaaniyadii oo akhriskii koowaad martay oo uu horkeenay wasiirka maaliyadda Farxaan Cali Gabane ayaa baarlamaanka hortaalay oo sugayeen inay qabtaan wuxuu yiri kalfadhiga waxaanu dadka afraad waxay noqonaysaa in gudoomiyaha ku xadgudbay xerosaadkii baarlamaanka uu deganaa xildhibaan hadiiba ay howlo muhiim jiraan maxay ahayd in la sameeyo waqtigan oo kale hadii ay xeerhoosaadkii ku xadgudbayaan kulamada isdaba jooga iyo kalfadhiyada
oo xilliyadii fasaxa meesha ka baxeen shaqana ay taalo maxay ahayd in la sameeyo oo shaqadaas lagu qaban kari shaqada waxay ahayd maadaama wasiirkii maaliyadda xukuumadda ay soo gudbisay maaliyadii budgetkii dowlad goboleedka galmudug ee sanadka 2022 baarlamaanka uu soo gaaray guddigii joogtada baarlamaanka uu soo gudbiyey baarlamaanka uu hor yimid wasiirkii maaliyadda akhrintii koowaadna uu maray waxay ahayd in maadaama kalfadhigii saddexaad uu furan yahay fadhigiisii afraadna uu hor yimid wasiirka maaliyadda waxay ahayd in uu sii socdo oo fadhiyada ay sii socdaan ilaa wasaaradda maaliyadda qaraarkii hor keentay oo ahaa muxuu ahaa budgetkii ama maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa qoondadii miisaaniyadii hor keentay la ansixiyo oo 2020 miisaaniyadda marka 2020 la ansixiyo kadibna loo gudbo in uu gudoomiyaha ku dhawaaqo markaas iyadoo wax wala aysan baarlamaanku waalan inuu soo xiro kalfadhiga saddexaad waa maasantahay aysan dhicin shaqadii socoto ayuu ku dhawaaqo gudoomiyaha kalfadhi howshiisa socoto in kalfadhi kale loo gudbi doono iyadoo aan la raacin habraaca sharciga ahayn oo qoran oo dhigaya in muddo 2 bilood ah baarlamaanka gaab kalfadhiga u dhaxeeyaan labadaas bilood iyo fasax baarlamaanka xaq uu leeyahay waa maasantahay xildhibaan waxaa kaloo jirta aad loogu jeedinaya baarlamaanka galmudug oo ah inaanay shaqaynin xilli dalka ay ka socotay doorasho marxalad xasaasi ah lagu jiray in gaabis xoog la xaggeena ka jiray miyay jirtaa iyadoo ay muhiim ahayd inaad shaqaysaan inaad sidoo kale fasax ahaydeen maalmo iyo bilooyin ka hor baarlamaanka wuxuu ku shaqeeyaa heshiiska soo gaarsiiyo uu soo gaarsiinayo gudoomiyaha gudoonka markii uu soo diro iyadoo xogeyaha uu soo gudbinayo warqadda heshiiska baarlamaanka soo gaarsiiyo uu leeyahay fadhi ayaa jiro maalin hebel iyo saacad hebel oo baarlamaanka uu furan yahay ama haddii xildhibaanada ka maqan yihiin deegaanada galmudug ugu faraa inay kusoo laabtaan kusoo xaroodaan muddo waqtigaas cayiman ah maysan dhicin intaas gudoomiyaha ama gudoonka asagoo u hadlay wuxuu soo gudbiyey inuu yidhi in xaalado jira daraadood baarlamaanka ma kulmi karo sanadii lasoo dhaafay bishii baarlamaanka laaweedii waxaana dib baarlamaanka loo furo sanadkan bishii juun 13keedii ilaa bishii juulaay 14keedii baarlamaanka 20 jeer ayuu kulmay iyadoo ay ka baxsan tahay xerosaadka baarlamaanka ku qoran baarlamaanka iyagoo og duruufaha galmudug ka jira ayay u sabreen baarlamaanka fasax gaaban ayay galeen agosto 3 isku soo noqdeen waxaan doorashaan galnay oo la doortay 6 senatar agosto 14keedii baarlamaanka asagoo shaqeynayo intaas kasii duulahay in galmudug cagaheeda isku taagto xaalad adag ku jiro ayuu gudoomiyey baarlamaanka waxaa inoo qoran habraac sharci ah oo baarlamaanka ansixiyey oo ah jadwal howleed 4 sano ee baarlamaanka iyadiina xeeroosaadkii baarlamaanka oo muhiim ahaa oo lagu shaqeynayo lagu khilaafay dastuurkiina lagu khilaafay kalfadhigii saddexaad ee sanad gudihiisa ku dhawaaqa maalinta sabtida ah inuu furi doono muddo 3 ashahana oo gaab ay u dhaxayn doonto 4 khamiis jimco ah labada kalfadhi daraaddeed waxay tahay in sharciga la baal marayo oo aan shuruucda loo hoggaansamin marka xaaladda ka jirta galmudug waa midaas waa maasanta ugu dambeyn galmudug iyadoo ay colaado ka socdaan dhibaatooyin kale oo qabiilka dhexdiisa ama dilal ay ka jiraan oo waxaa jira in baarlamaankii lagu eedeynayno xukuumaddii u afduuban yihiin oo aanay gudanin waajibaadka shaqo ee hor yiilay inaanay door iyo mas-uuliyad iska saarin waxa deegaanka ka socda maxaad ka qabtaa eedda loo jeedinaya xubnaha aad ka tirsan tahay ee inaad xukuumadda u afduubantiin baarlamaan ma afduubna baarlamaanka xukuumaddu ma afduubna xukuumaddii baarlamaanka waa laba hay-ad kala madax bannaan xukuumadda waa hay-ad fulin ah oo hogaamiyey madaxweynaha baarlamaankana waa hay-ad sharci dejin waxaana hogaamiyey gudoomiye baarlamaan oo baarlamaanka dhexdiisa iska dooranayaan ma aha baarlamaanka in qolo uu afduuban yahay waa baarlamaanka in gudoonkiisii uusan gudan karin waajibka saxda ah loo igmaday ah inuu baarlamaanka ku hogaamiyo dariiqa saxda ah baarlamaanka wuxuu u diyaarsiiyeen xubnaha baarlamaanka gebi ahaan inay shaqeeyaan guddiyadii baarlamaanka inay shaqeeyaan guddiga joogtada inuu shaqeeyo dhammaan iyagoo sida u diyaarsan ayaana dhicin in maalin walba ay shaqadii loo igmado inaysan qabanin
howlahaas oo dhan waxaa mas-uuliyadeeda iskale iyo baalmarista sharciga la baalmaray gudoomiyaha baarlamaanka yaytaa marka inay soo celiso wixii qaldan inay saxdo haddii guddoonkii baarlamaanka eedda dusha ka saarteen idina aada joogtiin. waxay imaanaysaa in xaalka jira hadda maadaama aad ila soo xiriirtay raadiyo ahaan xogta galmudugna aad ogtihiin in badan oo kamid a annaga baarlamaan ahaan oo mar walba waxaa waajib inaga saaran yahay in xasiloonida galmudug iyo adeegida shacabkaan u dhaaranay ina matalaadoodii maadaama waxyaabaha annaga cooperation ama waajibaadka noo ah mabaadi'da noo aan ku shaqeynayno ay kamid tahay matalaada iyo la xisaabtanka iyo sharci dejinta in qaybta matalaada aan matalina shacabka ee mar walba aan ka muuqano in waajibaadkana saaran ee matalaada aan gudano ma aha sida hadda wax kugu muuqdaan inta badan inay jiraan inta yaroo hadda baarlamaanka caqabada ku ah waa hogaanka baarlamaanka oo aan shaqadii loogu talagalay hogaankii loogu talagalay saxda ahaa ee baarlamaanka ahaa dariiqa saxda aan ku hogaamin baarlamaanada sida caadiga ah guddoonka baarlamaanka wuxuu ku shaqeeyaa ajendo walba oo uu soo maro guddiga joogtada baarlamaankana waxa ay soo gudbiyaan waxaa loo horkeenaa baarlamaanka laakiin gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug wuxuu ugu duwan yahay intaas in uu la yimaanayo ajendo mar walba asaga u gooni ah kadibna ay dhacaydo in baarlamaankii asaga isku hor yimaadaan baarlamaanka mar walba iyagoo xeerinaya waxay fiiriyaan danta guud ee dowlad goboleedka galmudug laakiin hadda tillaabada uu qaado gudoomiyaha baarlamaanka ma aha tillaabo sax ah oo ku habboon xilligan in la yidhaahdo laba kal fadhi inuu dhexay 3 casho wax suurtagala ma aha kalfadhigii saddexaadna sanad gudihiisa la furana inooma qorno xeerasaadka nooguma qorno dastuurkana nooguma qorno wax suurtagala oo dhici karana maaha